diblomooyinka bixino marka waa kuwan waa computer literacy wax la yiraahdo waxa loogu talagalay waa qofka bilowga ah mubtadi'a qofka ah computeran haystaa waa igu cusub yahay ama hadda ka hor baan mar waxaan sameeyay DOS oo kale ama Windows XP aan hadda ka hor mar isticmaalo waa ilooba ayantan laab salaax ya waxa loo batay mobile kor tuur waxaan rabaa inaan computerka sida loo isticmaalo sida loo hagaajiyo oo waxaan ka wadaa sida maaragtay settingskiisa iyo Windowskiisa sida aan u isticmaali lahaa ayaan rabaa inaan barto sida loo hagaajiyo waxa lagu bartaa IT supportiya sida loo isticmaalo office applicationska sida wax loo qorto CV haddaan diyaarsanayo haddii aan xog qorayo kale haddii aan xisaab haddaan diyaarinayo haddii aan ka shaqeeyo meel dukaano kale sidaan wax u xisaabi kara anoo Excel isticmaalaya haddii aan rabo inaan macallin aan ahay ama qof waxaan ahay waxbarasho dhaqameedka si fiican u soo bartay waxaan rabaa inaan digitalkan adduunkan barto bandhig aan abuuro sideen u isticmaali karaa Microsoft PowerPoint iyo kale iyo wixii lamida iyo Microsoft Word iyo cilmi kale oo meesha ku jiro tira badan ilaa ay 8 koorsay ka kooban tahay oo Microsoft Access lagu soo dari doonaa ilaa hadda in bisha soo socota fiiri dibloomada waxa loogu talagalay qofka bilowga ah oo doonaya inuu hadda lugta la galo barashada cilmiga computerka oo asaaskiina oo iska dhiso wali intuusan gaarin IT-giisaro intuusan gaarin oo wuxuu rabaa inuu ka bilaabo hadda barashada asaaska computerka waxa laga yaabaa dad badan oo dhigta jaamacadaha oo computer science-ka dhigta dhowr sano dhigta in sanadka koowaad sanadka labaad wuxuu ku baran karo 4 bilood in lagu mashquuliyo oo ay tahay Windows-kii haday noqoto Windows 10 Windows 11 iyo Office applicationski intaas in la baro kaliya marka waxaad ku baran kartaa 4 bilood ama ka yar libaax ama libaaxad fiiri English Foundation aan bixinaa oo ah qofka waxaan ka dhisaynaa aasaaska luqadda Englishka oo dibloma 6 bilood soconaysa web design ayaan bixinaa oo ah professional inaan kaaga dhigayno muddo kooban oo 6 bilooda ballanqaadkaasay wadata haddaad projectyada sidii loogu talagalay aad u soo bandhigto kuwa adiga aad soo diyaarisana aad imtixaanka ku gasho ee aad imtixaanka inta gasho lagaa saxo lagaa hubiyo 6 bilood ama haddii aad ku dhamaynayso 9 bilood ama 12 bilood ama aad ku dhamaynayso 3 bilood waa adiga mid kugu xirane kadibna ay qaybta koowaadi ku tahay accreditation in lagugu samaynayo ah in lagugu xisaabinayo stackable qaybtii koowaada lagaaga dhigaya 1 diploma aad qaadatay waxay qayb ka tahay lagu digital creative media degree haddana waxaad qaadanaysaa diblomada xigta ee graphic design aad waxaa gelisay 4 bilood 6 bilood haddana waa lagu xisaabinaya maxay degree ka mid tahay iyaduna kadib waxaad gelisay 6 bilood oo kale waxaad gelisay digital marketing ayadana waa aad qaadatay waa dhamaystiratay degree-gaagii asoo diyaara ayaad qaadanaysaa marka 3 diblomo oo ah web design graphic design digital marketing markaad saas u dhamayso degree bay ku noqonayaan waana kii dhayna halkan ereygan stackable oo wax isku ka raacaya waa muhiim in ereygaas la fahmo maxaa yeelay waa erey aad iyo aad wax weyn u xambaarsan ay shirkaduhu sameeyaan marka qofku ama jaamacaduhu ay sameeyaan qofku marka dhowr xirfadood oo kala duwan oo isku qaato accreditation u sameeyaan stackable uga dhigaan waa u xisaabiyaan xirfad ahaan hadhowtiina waxay siiyaan marka shahaadadii marka loogu talagalay xirfadda ka hadlaysay soft skill marka loo yaqaan waa xirfadaha fudfudud ee qofka raba freelancer inuu noqdo qofka raba inuu iskiisu shaqaysto oo barto waa web designer inaad tahay siiba dadka aad iyo aadka u xiiseeya inay online ganacsiga samaystaan web design kama maarmaysid ee web designer sida loo noqdo baro ayadoo waliba fudud ee ku salaysan CMS wax la yiraahdo content management systemka ugu fiican uguna caansan ee loo yaqaan WordPress adoon coding iyo programming waxba u baahan ayaan ku baraynaa si professional kadib graphic designer ku xujisanaysaa soft skill-ku kamid yahay kadib digital marketer noqonaysaa waana iska fududahay qofku inuu yahay web designer iyo graphic designer ayaa runtii shuruud u ah si aad digital marketer u noqoto marka tala la isku leeyahay qofka marka uu yiraahdo waxaan rabaa digital marketing inaan noqdo maxaa yeelay dad marin habaabinaya ummadda ayuu soo dhageystay asagoo caabanowna soo galaa lacagtii wada baxsadaa digital marketer rabaa inaan noqdo markuu dhowr bilood wada ayuu inta confuse ka qaado ama ku dawaqmo ayuu wuxuu yiraahdaa web design aan aqoon iyo graphic design sababta aan u baran karin inaan taladiina qaato ee dib inta u laabto ama u laabato ay dib u soo bilaabaan kadibna sidaas ugu saxmaa pathku ama wadada tooska ah waxbarasho